halkani waa gooja cadde goobtii ugu hadalaynta badnayd sanadkii tagay ee 2023 goob ay aad ugu herdameen ciidamada Somaliland iyo kuwa maamulka SSC Khaatumo maanta se waxa lagu soo bandhigayaa buugga duqii suugaanyahanada iyo abwaankii abwaanada ee jaamac kadiya cilmi oo ciidamada Somaliland ay duqeyn ku dileen intii uu socday dagaalkii u dhaxeeyay dadka deegaanka iyo maamulka Somaliland halkan oo ay muddo 8 bilooda ku dagaalamayeen isla markaana saldhig ay u ahayd ciidanka Somaliland ayaa ugu dambeyn laga kiciyay 25 bishii August ee sanadkii tagay taasina waxay soo afmeertay sanooyin ay halkan dool ku ahaayeen si xoogana ku joogeen bilbillaah kariim guushan kula wareegno Ilaahay na siiyay 25 bay ahayd waxa weeyaan haddana waxa degan ciidamada talis ah ciidamadii xooggood jiiday jiraan talis baa degan sida aan ka soo xiganay ila military ku dhawaad kun askari ayaa Somaliland uga geeriyootay dagaalkii gooja cadde halka boqolaal kale oo saraakiil dagaaloogayaal iyo askari isugu jira nolosha lagu qabtay kuwaasoo ilaa hadda maxaabiis u maamulka SSC Khaatumo haddaba maxaynu ka naqaan saldhigga gooja cadde maxaase ka dhigay saldhig aan si fudud lagu geli karin sidee saacad gudaheeda ay ciidamada SSC Khaatumo gacanta ugu dhigeen taliskii weynaa ee gobolka Sool ay ku lahayd Somaliland su'aalahaas iyo kuwa kale ayaan weydiinay qaar ka mid ah saraakiishii aan kula kulannay saldhigga gooja cadde barnaamijka bacriminta IVF ee lagu beerayo mataano iyo ilmo kaliya ayuu soo kordhiyay cusbitaalka Marwo Fertility Center waana barnaamij anfacaya lamaanayaasha aan ubadka helin in muddo wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada shaashada kaaga muuqda gooja cadde waxay ahayd xarun militariga Soomaaliya bay ahayd oo dawladda qaranka Soomaaliya 2007 si sahlan bay u soo degeen nimankan jabhadda Islam ka bacdina waxa weeye janasaydkii 8 bilood magaalada ka mideen goobta ugu weyn oo ay ka duqeynayeen magaalada ahayd ay ka duqeynayeen magaalada waxa weeyaan garabkoodana Ilaahay ka baxay 25 August ognahay gooja cadde inay ahayd meel xoogan oo ay nimankaas degayn waxyaabo u sahlay muddo dheer inay fadhiyaan ku dagaalamaan waxaan uga sheegtaa waxa weeyaan maadaama dawladda qaranka Soomaaliya ay lahayd xaraa dhisatay ahayd waa dhul istaraatiiji ku taala magaalada Laascaanood dhowr kiiloomitir u jirta waxa weeyaan waa difaaca u weyn dawladdu iskama ay dhigan jiray wax meel kasto ay degayso waxa weeyaan istaraatiijiyad deegaan baa jira wax la yiraahdo ciidan marka tii hore bay raaceen oo si sahlan u yimaadeen marka 8 bilood istaraatiijiyadaas ayay ku joogeen kuna dagaalamayeen magaaladana dabuura ku wareegsan buurahaas oo dhan bay saarayeen ka duqeynayeen dhankana buura inaga xigo difaacooda ma yaalay goobta dadka ka duqeynayeen oo xaradii taliska ahayd baa ahayd hadda waxa weeyaan wax kasto ay keeneenna Ilaahay guusha gacanteedu soo geliyay alxamdulillah rabbil caalamiin Ilaahay baa mahad iska leh aalki gooja cadana 2 kiiloomitir buu inoo jira meeshan waxay ahayd meel aad iyo aad xero ciidan ugu ah muhiim waana meel difaac xidhan leh difaaca xidhan wuxuu ahaa halkan buurahan waxa la yiraahdaa nuurdaaqda taagan buurahan kalena waxa la yiraahdaa nuurdaaqda jiifta buurihii Laascaanood qalcadda la oran jiray sayidku qalcadda ula baxayna waa kuwa iyana dhinaca magaalada inaga xiga ciidankoodii difaaca ahaa waxay u xidheen buurahay saareen halkan markaa godka la maqlayay waxay noqonaysaa meel hooseysa oo laga difaaco buuraha aalki gooja caddana 2 kiiloomitir buu inoo jira iyagaana magaca soo raray oo u bixiyay gooja cadde bohoshan oo ay u bixiyeen burcayar waxa la yiraahdaa dabaraqas waxayna ka sheegeen dhulka magacyadiisa bay been ka sheegeen oo magacyo koobiya oo beena ayay kor saarayeen waxay ahaan jirtay waagii hore ilaa iyo xilligii sayidka taariikhda saynu ku hayno halkaas hadeer madaxtooyada laga dhisay ayaa waxay ahayd xero ciidan oo sayidkiya halka waxay ka qodi jiray sayidkii dahab ku qodi jiray god dahab ku yaal waana meesha aad u maqasheen buurta hodan meesha aad u maqasheen sayidka magaca hodan uu ka joogaa